kulanti wacan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa Bisla TV kusoo dhawaada warwixii naga soo gaadhay geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale qodobo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan intii socoto xilli jabintan wareed balse aan ku hormaro kuwada ugu waaweyn kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta bartamaha iyo koonfurta dalka Soomaaliya ayaa goob fagaara waxay ku toogatay inay sheegtay inuu aflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee Soomaaliya iyo qaramada midoobay u gudbisay qorshaheeda isbedelka cimilada gudoomiyaha baarlamaanka Galmudugna wuxuu beeniyay in dad gaar ah loo xiray kuraasta labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya intaas oo qodobada warka kuwada ugu doorka roole imikii haatan waxa isku diyaarisaan qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال صاحبيال وادكم مالسنتين سيدا توس كادو قحرينتين بسلا تي في مركزتا يميال كستا وادكلا جوكتانا وحد مقبراتين انو دلو داقنا برنامجيو iyo waliba wararkii u dambeeyay geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hadda tahay qof nagu cusub fadlan subscribe saar channelka si aad ula socoto markasta wararka iyo warbixinada barnaamijyada wata soo galino bartan waad ku mahadsan tahay la socodkaaga ballanteenu waa barnaamijyo tayo leh warar xiiso leh iyo warbixinooyin u dambeeyay geega Soomaalida iyo guud ahaan caalamka waa mahadsantiin dagaalamayaasha al-shabaab ayaa fagaaro ku yaala degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud waxay shalay gelinkii dambe ku dileen inay sheegeen inuu aflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ninka xukunka dilka ay ku fuliyeen al-shabaab ayaa lagu magacaabi jiray Xasan Tooxo Fiidow oo ku noolaa deegaanka Xindheere maxkamadda al-shabaab waxay sheegtay in cadeymo iyo markhaatiyaal lagu helay in ninkaas uu aflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ninka la sheegay inuu aflagaadeeyay nabiga iyo dadiisa lagu sheegay 78 jeer waana dilka ugu horeeyay al-shabaab ku fuliyeen ruuxay sheegeen inuu aflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Maadi Maxamed Guuleed Warsame ayaa shaaciyay in Soomaaliya qaramada midoobay u gudbisay qorshaheeda tabarucaadka qaran ee waafaqsan heshiiskii Paris ee isbedelka cimilada heshiiska Paris ayaa tilmaamaya qaab dhismeed caalami ah oo lagula dagaalamayo isbedelka cimilada wuxuuna raadinayaa in lagu yareeyo kulaylka adduunka si aad uga hooseeya 2 centigrade qodobka afraad ee heshiiska Paris wuxuu sheegayaa in dhinacyadu ay raacaan tallaabooyinka yareynta wasakhda hawada iyadoo ujeedadu tahay in la sameeyo dhimis degdeg ah oo ku saabsan qiiqa hawada waxay kaloo ujeedadu tahay in la xoojiyo awoodda wadamada la tacaalida saameynta isbedelka cimilada oo lagu taageero dadaalkooda kadib markii la ansixiyay heshiiska Paris ee 2015 dhinacyada waxaa laga rabay inay soo gudbiyaan tabarucaadkooda qaran ahaan sanadka 2020 Soomaaliya ayaa ansixisay heshiiska Paris bishii April ee sanadka 2016 gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa wax magama jiraan ku tilmaamay cabsida ku aadan inay jiraan kuraas gaar ah oo loo xiray musharaxiin gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay muwaadiniinta Galmudug inay si xor ah uga tarsami karaan kuraasta labada aqal ee baarlamaanka wuxuuna sheegay inay jirin cid awood u leh oo ka hor istaagi karta arrintaasi hadalka gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug ayaa yimid xilli madaxweynaha Galmudug laga sugayo inuu soo gudbiyo liiska magacyada musharaxiinta aqalka sare oo ay siyaasiyiin badan oo saameyn ku leh Galmudug isha ku hayaan guddiga amniga doorashada Galmudug ayaa shalay soo saaray awaamir lagu mamnuucayo in hub la soo geliyo Galmudug taasoo ka dambeysay kadib markii siyaasiyiin u sharaxan baarlamaanka ay hub iyo ciidan la galeen Dhuusamareeb cabsi weyn ayaa laga qabaa in qalalaaso siyaasadeed ay ka dhashaan doorashooyinka Galmudug iyadoo Galmudug ay ka soo jeedaan siyaasiyiinta badan oo ka tirsan mucaaradka dawladda siyaasiyiinta mucaaradka ayaa qaarkood ku eedeeyay in madaxweyne Qoorqoor uu wado qorshe ku aadan in siyaasiyiinta mucaaradka laga rabo tartanka aqalka sare Indonesia waxay diiwaangelisay dhacdo naxdin leh oo ka badan 100,000 oo u dhintay fayraska xogta wasaaradda caafimaadka ee dalka ayaa muujinaysay iyadoo wadanka koonfur bari Aasiya uu dhawaan noqday mid ka mid ah 5 qof ee adduunka ku dhintay Indonesia waxay la dagaalamaysay mawjadaha caabuqyada iyo dhimashada way wadeen kala duwanaanshaha Delta ee aadka u faafa bishii la soo dhaafay maadaama wadanku si dhaqso leh u noqday xarunta fayraska Aasiya xogta ayaa muujisay in tirada guud ee cudurrada Indonesia ay gaadhay 3.3 milyan halka dhimashaduna ay kor uga kacday
1747 maalinle ah iyadoona gaadhay ilaa 100,630 inkastoo khubarada caafimaadka dadweynaha ay rumaysan yihiin in tirada dhabta ay aada uga badan tahay inta la sheegay. gobolka ugu dadka badan dalka Australia ayaa soo tabinaya maalintii ugu xumeed ee uu ka dilaacay kala duwanaanshaha Delta waddankaasi iyadoo la diiwaan geliyay 262 infekshanno cusub oo maxalli ah iyo 5 dhimasho. madaxa gobolka New South Wales ayaa sheegay in 4 ka mid ah dadka dhintay aan la tallaalin midna uu qaatay hal tallaal. qiyaas ahaantii AstraZeneca dabayaaqadii bishii May. mas-uuliyiinta Australia waxay ku booriyeen dadka ku nool Sydney inaanay sugin 12 toddobaad ee soo socda ka hor intaanay qaadan qaybta labaad ee AstraZeneca. tirada dhimashada fayraska Indonesia ayaa kor u dhaafay 100,000 oo dhimasho ah sidii ay warisay CNBC Indonesia iyadoo ka soo xiganaysa xogta wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. Indonesia ayaa sheegtay 35,867 xaaladood oo cusub iyo 1,747 dhimasho ah oo dhawaan ah ayay warbixintu sidoo kale muujinaysa, taasoo wadarta guud ee tirada kiisaska iyo dhimashada ka dhigaysa 3,532 milyan iyo 100,636 dhimasho. markaana aan dib kugu celiyo Cabdirasaaq. dhanka kale boqolaal mutadawiciin oo u dhashay Ruushka ayaa ku biiraya dagaalka ka dhanka dabka kacay kaymaha waddankaasi. dabka sanadkan ka kacay dalkaasi ayaa waxyeelo gaarsiiyay 4.2 milyan oo hektar isagoona gaadhay ilaa waqooyiga Bool. waxaa la arkay oday iyo dhalinyaro wadooyinka inta dhexdeeda taagan halkaas oo hareeraheeda gubanayeen. magaalada ay ku nool yihiin 300,000 oo qof fiidkii dabayaaqadii bishii Luulyo. mutadawiciin ayaa isku diyaarinayay inay ka baxaan kolonyo ku wajahan degmada Corneo oo Basquiel oo ay ka dhasheen qaar ka mid ah dabkii ugu xoogganaa ee bishaasi. ilaa 13 xubnood oo ka tirsan naadiga ciyaaraha fudud ee maxalliga ayaa isugu soo ururay meel ku taal dabaqa xarun mutadawacnimo halkaasi oo 2 sarkaal oo ka tirsan wasaaradda xaaladaha degdega ay ku qabteen tababar degdega oo samata bixina. dhalinyaradii waa u xiiseynaya inay dhaqaaqaan kana qayb qaataan samata bixinta ayaa barkood dhageystay hadalkaasi oo ahaa waxa kaliya oo ku dhiirigelinaya hawsha ay u qabanayaan dalkooda. wuxuu u sheegay wakaaladda wararka AFP in ujeedadu aysan ahayn inay dabka iskood u damiyaan laakiin ay tahay inay xirfadlayaasha siiyaan fursad ay ku nastaan dhowr saacadood ama dhowr maalmood sababtoo ah waxay dabka daminayeen bilooyin waanay daaleen. xaaladaha dabka ayaynu ku jirnaayee ugu yaraan 150 guri ayaa ku baaba'ay dab xoog leh oo ku hareeraysan kiniisad iyo dhowr iyo 10 tuulo oo ku yaal jasiiradda Gariiga Eifia. kaliya waa mid ka mid ah in ka badan 100 dab oo ka holcaya waddanka kulaylka daran ee Gariiga. damdamiska ayaa sidoo kale Arbacadii la dagaalamayay dab ka kacay meel u dhow Athens halka ololku halis geliyay Olympia oo halka ay ka dhasheen ciyaaraha Olombikada iyadoo duqa magaalada uu codsanayo la taageero caawimana loo fidiyo. waxaa ku neefqabatoonay qiiqa dabka ka dhashay dartiis. mid ka mid ah suufiyada ayaa wakaaladda wararka ee NA ee ugu sheegay telefoon isagoo ku daray ulal qiyaastii 30 ilaa 40 mitir inuu ku jiro macbudka ama goob cibaado. ilaa 100 damdamiyayaal ah oo ay taageerayaan 7 helikobtar iyo diyaarado biyo qarxin ah ayaa la abaabulay si ay dabka ula dagaalamaan sida ay sheegeen saraakiisha ilaalinta rayidka. xogaga TPLF ka dagaalama waqooyiga dalka Itoobiya ee gobolkaasi Tigray ayaa waxay sheegteen inay qabsadeen deegaano hor leh oo ka tirsan gobolka Wollo iyadoo ay jiraan dadweyne ku barakacay deegaanada ay qabsadeen ururka TPLF oo dagaal xoogan kula jira ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. geestooda ciidamada federaalka Itoobiya ayaa wada dadaalo xoogan way dagaal kula gelayaan ururka TPLF iyadoo muddooyinka u dambeeyay Itoobiya ay gilgileen dagaalada hor kale ee u dhaxeeya ciidamada iyadoo Itoobiya ay muddooyinka u dambeeyay gilgileen dagaal hor leh oo u dhaxeeya ciidamada federaalka dowladda Itoobiya iyo kuwa jabhadda TPLF. ciidamada dowladda ayaa waxay
garab ka helayaan maamulada ka jira dalkaasi Itoobiya sida Axmaarada iyo maamulka dowlad deegaanka Soomaalida iyaguna dhinac kaga jira dagaalka ka dhanka maamulka Tigray. Geestiisa Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdulla Hamdok ayaa taageero ka helaya beesha caalamka ayaa lagu wadaa inuu dhexdhexaadiyo dowladda federaalka Itoobiya iyo ururka TPLF iyadoo TPLF hore qodobo u hordhigtay dowladda federaalka Itoobiya si loo gaadho heshiis xabad joojin ah oo laga hirgeliyo guud ahaan dalka Itoobiya oo muddo 8 bilood dheeraad ah uu ku walcayo dagaalka u dhexeeya jabhadda TPLF iyo ciidamada dowladda federaalka Itoobiya. Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa hore u sheegay in ciidanka dowladdiisu ay gacanta ku dhigi doonaan deegaanada Tigray, isagoo sidoo kale sheegay inaanay dowladda Itoobiya diyaar u ahayn rabshado qalalaaso hor leh oo sii socda in ka badan. waxaana dagaalada Itoobiya oo socday muddo 8 bilood dheeraad ku barakacay kumanaan kun oo qof iyadoo ay ku dhinteen tiro aad u badan oo dad ah oo badan dadka rayidka ee aan waxba galabsan. ugu dambeyntii bas ayaa la dhacay gaadhi xamuul ah oo ay ku dhinteen 41 qof halka 30 kalena ay ku dhaawacmeen roobab mahiigaan oo ka daayay bartamaha Mali sida ay sheegtay dowladdu. wasiirka gaadiidka Dimple Madina Sisako ayaa sheegay in salaasadii dadka dhintay uu ku jiray ilmo yar kadib markii ay isku dhaceen baska rakaabka iyo gaadhi xamuul ah oo siday wax soo saarka beeraha meel u dhow magaalada Sijo. 3 ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa si xun u dhaawacmay ayuu Sisako ku daray hadalkiisa. Shilalka noocan oo kale ayaa kuwa si joogto ah uga dhaca wadamada hore u gumaysan jiray Faransiiska halkaas oo xaalad xumida wadooyinku ay ka dhalatay xiisad bulshada. Dowladda ayaa markii hore baraha bulshada ku sheegtay in 37 qof ay ku dhinteen shilka ay ka dhacay Sambegon iyadoo aan si faahfaahsan looga hadlin sida ay wax u dhaceen. Traore oo ah gudoomiyaha gobolka Saint John oo ay ku jirto Sambocha ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in shilku ka dhashay wadista gawaadhida xilliga roobka ay daayeen iyo cimilada oo xun. qodobkaas ayaa guniga gabagabo oo ahaa warbixinaga soo gaadhay geega Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. intaan ku kulmayno wararkan iyo wararka xiga waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.